عذر كان لليه فاس وحياة أول متعاطي قفكي أنتوا عنيي أنت كبحيسي باكل بدن waxaa halkaas ka arkaysaa gabdhaha Soomaalidu inay aad iyo aad ma arkaysaa duntooda u fiican tahay dad qiimo leh ay yihiin sababta keesas badan oo noocaas oo kale ah baana soo maray cunugu marka uu bridge hoos lagu keeno waa inaad gacanta hoos gelisaa oo kor u soo qaadaa kiishanaade wadaha caadi uma dhali karto waa in qaliin ay ku dhashaan laakiin dadka da'da age-kaas oo dhalinyarada waxa u badan cuduradan galmada la iska qaadsiiyo ma arkaysaa ay diido waxa kamid ah inaysan dumarku uurka qaadinin wax jira caanaha naaska ay siinayso badanaa 2 sano ilaa caadi ahaan diinta xataa way sheegaysaa badanaa ma qaado haddii uusan ninkii gabadhii waxba ka qaban karin waxay xaq u leedahay inay ka tagto ma taqaanaa shareecaduna waa u banaynaysaa الله وبركاته خيارته هذا نقل ساعتين مالك الصوت دون ذا كجوكتان وحل السوق قاري حلقي برنامج كليدنا يشو أنه هذا يدين سو مرين جرني برنامج كان صدوق تيم بوا أسبوع له أسبوع والبنا حنوك سوق هذا موضوع إذا يدينكم هذا سوق قرتان كود ضدك وقفرها بدنا مركز حسين أيان لخاتير تأيان أوبن دقنا برنامج كان الصوت دياريا دبنا وباقي أيان لقى جوابه حنوك هيدا فرا بدنا موضوعية هذا فرا بدنا سوق قري أو أنت بدنا إيميل وسوق العليا وإلى هذا كيجي ماذا نسوديني موضوع عشان حسينيني موضوع أنو كحشونينا أما أنو كوي عنينا أما أن قفك أن سوقري أن نقدريني حبيراتي مجرته لكن واسي وكله الريان إيه ضدك أقبضا كي صوت البضان هذا ما كان أسبوع عن أنو كهلنا أما عاو هالكان نوفر لنا يا وحوي هي من أصله كدوان كوي هراء لنا أن هراء يسوديني وحنجعلها إنه شرحه أنا أذي أرجو هذا علمي الدكتور أبشر عبد الله منصور oo surgeon ah ama dadka camaliyada ama qaliinka sameeya ah ayaan insha Allah taala u deynaya inuu sharaxo waxaan ku xigi doona sharaxadiisa kadib sawirro ayagu aad iyo aad u fara badan aan jecelahay caruurta yar yar inaysan daawanin hadii Ilaahay yiraahdo mowduucuna waxa uu salka ku hayaa bawaasiirta ama baabasiirka ama hemorrhoidka waxa lagu yiraahdaa afka Ingiriiska oo asagu maaragtay meel xasaasiyana ku yaala dadka badankoodana dhibaato ku haya xanuunkaas hayo isla mar ahaantaana aanu jecelnahay foodina darro barnaamijyadan qofkana soo waca oo sheegay xanuunka haya iyo maaragtay dhibaatada mowduucan ka hadlayno ka waramaya khasama inuu noo sheego magaciisu meesha joogo barnaamijkan ma aha mid dadka maxkamad lagu saarayo ama lagu eedeynayo balse waa cagsiga meesha qofku inuu ku nafiso aqoon oo ka helo arintana uu wajaho ay tahay ujeedada ugu weyn oo loo sameeyay waxay tahay anagoo dhaqaatiirta looga mahad celinayno ummadda Soomaaliyeed in laga wacyi geliyo caafimaadka iyo waxyaalaha la halmaala mowduuc kasta ونلاش الله الماننا إن شاء الله تعالى فوضى أن ندرنا دكتور أبشر عبد الله منصور يعني جعلنا مركز كسولوي وأنا أدي أدوكم هذا لنا دكتورة welcome to the family هذا يعني ودوها وما سنتها عبد الحفيد سيدا وناقي شرفته كجرة ومر والبقات يسودويس إن عوا برنامج كأنه وحكم دي هاي قيب كم ده قلينك أيان قلنا وحكة تابننا آد وينتهي وحالا لها بروكتولوجي ama barashada oo qaybta hoose ee qofka bini aadamka ah ayadoo ay soo galayso bawaasiir wax ay fishar dhahaan fistula iyo abscess ama malax meesha ay ku samaysanto dhowr meelood ayaan taaban doonaa insha Allah anagoo xoogaa saarayno bawaasiirta iyo fisharka aan saari doono marka bal waxa keena marka hore xoogaa yar loo sharax intaan sawir soo deynay okay bawaasiirta horta maxay tahay iyo waxyaabaha ku dhaca qaybta ugu dambaysa ee qofka bini aadanka ah oo ilaa 15 centimeter ah ayaan caawa ka hadlayay agagaarka eridaas iyo wixii ku dhaco iyo sida qaliin loogu hortago ama qaliin loo sameeyo maqaarka saataqaanid ama xididada oo dhiiga ah oo hemorrhoid lagu magacaabo ayaa mararka qaar kood jileec noqon kara ama dhiig ka soo buuxsami kara ama xuubka oo la socda oo soo barari kara marka ay soo bararaan iyadoo ay sababuhu ay kaliyin horta qofka oo geneticada bardana waa laga bilaabaa dhaxal ahaan asagoo ready u ah oo diyaar u ah oo macnaha inay sameysmaan tan kale habka nolosha qofka fadhiga tirada badan shaqooyinka qaar kamid ah fadhiga badan ee sheeg maxaan ku dhahaa isriixitaanka maartay musqusha markuu qofka tago cabaar uu fadhinayo oo isriixayo iyo maxaan ku dhahaa obesity dadka culeyska ah oo aad u culus iyo pregnancy haweenka ah iyo maxaan ku dhahaa ayaa faktarro fara badan ama markay waxyaabahaas kulmaan ayaa bawaasiirtu ay sahlan tahay inay soo baxdo waa xidid
oo veene ah ama xididada dhiigga celiya oo macala xuubkii oo hoos ku yaala la soo bararaya markana waxay leedahay garaadooyin marka first level second ilaa iyo 4 level ayay leedahay oo qaybaha ugu horeeya aad kula xarbinaysa daawooyin kuwa kalena aad maxaa qaliin ah aad ku sameyn kartid hadda waxa qaliin cusub ayaa soo baxay aad u sahlan oo la xiraayo rubber band ligation lagu magacaabayo ninka soo saaray magaciisa loogu daray waa la xirayaa xididka dhan waa la dilayaa soo mana la gooynayo lama taabanayo markii ay xididka meesha ka xirtay dhiigga ay xirtay tartiibta kaligiisa go'aya hadhow saxaradu soo raacaya habkaas ayaa hadda tii ugu dambeeyay soo baxa oo marka injir baa afka looga xiraya injir afka looga xiraya jidada waxay tahay inuu si dhiig helin u dhimanaya tartiib kaligiisa soo go'aya soo nin qolof soo dhacdo kala noqonaya ayuu noqonaya uu soo raacaya soo ninka rubber band soo saaray kaas ayaa ugu dambeeyay waa taqaana in ay maxaan ku dhahaa qofka haddana waxyaabaha keenayo oo aad ugu badan abdi xaafado waxa kamid ah marka caloosha ay fadhiisato oo soo qofka musqusha aysan aadaynin 3 bari 2 bari movement caloosha oo mandhicirka yaraada ayadana mashaakilkeeda ayay wadataa oo way ka qayb qaadataa waa gartay waxaan jeclahay inaan sawirro soo dayno aad dabadana noo sharaxday waxay intaanan okay masiirkan ugu horeeya waa ujeeda qaybta ugu dambeysa dheefshiidka ayaan ka hadlayaa laba muruq uu leeyahay oo sphincter loo magacaabo oo saxarada wax walba oo celinayaan hal waa involuntary oo maskaxda ayaa xukunta midna waa voluntary labada maskaxda xukunta laakiin markii saxarada ay soo gasho meesha ugu dambeyso rectum la dhaho saxarada halkaas soo fadhiisa qofka bini aadamka ah markaas kadib ayaa waxa nerva ayaa qaadidaya oo u sheegaya maxaan ku dhahaa maskaxda in meeshii saxara ay taalo soo isfinteraha muruqa hadda oo farajooyinka tilmaamaya oo xiran ayaa la furaya si saxaradii meesha uga baxdo anatomically ama dhismaha jirka bini'aadamka markaa fiirisid hoos markaa jirtid habkaana u taala saxaradii meeshii ka baxaysay meesha soo fadhiisanaysay markii dheefshiidka dhan ay soo wada marto waaye midka ku xiga sawirka ku xiga da eegno hadda daa ujeedid kan oo kale bawaasiirta ayaa 3 qaybood oo kale waxay noqonaysaa ama bawaasiir external banaanka taalo kan geeska ah mid laba dhexda ku jirto iyo iyadoo isku jirto tan saddexaad soo xidid dhiiga oo waaye oo weynaadeen oo soo baxayaan soo banaanku yaala guduhu ku jira midna uu isku darsamay saddexda nooc kala saari karnaya oo maxaan ku dhahaa oo nooc oo bawaasiir ayaa jiri kara marka bawaasiir daa ujeedid waxa waa xidido oo babalaarteen oo aan dhiigii si fiican u celinaynin ay xuubkii ku dahaarna korkooduna la soo raacay waaye midka ku xiga inta grade ay leedahay pilotka maxaan ku dhahaa bawaasiirta iyadoo yariisa grade 1 lagu magacaabo banaanka ma soo baxayso darajooyinka ay leedahay waaye haddii aad masiirka labaad ka saddexaad aad ka soo bilowdo bidix ilaa midig aad u socotid kan afraad waa grade 4 markaas qaliin markii gaarayso 3 iyo 4 iyo waa la qalaa inta kale laakiin waxaa looga hortagaa maxaan ku dhahaa qofka oo exercise fara badan la siiyo biyo badan uu cabo sheeg calooshiisa la socodsiiyo haddii uu cayileeyahay lacaatay waxyaabahaas la macnaha awlada bamaatooyin daawooyin siinaysa jirka ay ku tagayaan daawo kamid ah dad xasuusatid oo xididada vena varicose lagu daaweynayo waa la siin karaa oo waa la siiyaa oo daflonki way caawinaysaa midka ku xiga marka markoosa qofka uu tago sida garaadooyinka kala duwan ay yahay qofka maanta oo dhan musqusha uu fadhinaya dhaqsi kama imaanayaan mararka qaarkood qofka haddii ay hayso bawaasiir ama dhibaatooyin ay haysaan wuu baqayaa qofka soo asagii ayaa conscience maskaxdii ayaa uu sheekaysana uu diidaya inuu dhaqsi imaado laakiin qofan problem qabin markuu musqusha tago horuu macnaha uu ka dhigaya laakiin qofkii cabsidii ayaa waxay u keenaysaa in uu daaho saxaradii tan haddana way sii zaa'idinaysaa oo in bawaasiirtii ay sii weynaato midka ku xiga hadda haddaa ujeedid inta nooc ay noqon karto oo gudaha mawjida isfinteraha inta taalo kan banaanka yaalo 4 grade oo kale dhahan kan gudaha yaalo way kala duwan yihiin marka masuulkan wuxuu ku tusayaa inta nooc aad heli kartid aad la kulmi kartid oo bawaasiir hadhow ha noqoto in daawo aad isticmaashid ama ha noqoto qaliin aad isticmaashid ama si hadda kii ugu dambeeyay rubber band aad isticmaashid kan waxaa la dhahaa
fistula waxa waaye derbiga ayaa waxa ka soo baxay ujeedid redka ah jid ayaa ka furmay marka saxaradii meesha xagga la rabay ayaa waxa imaanaysa marka malax ayaa soo marayso qofka waxa kaliya oo dareemayo qayb barida ka mid ah ayaa malax ka soconayso kaas xanuunkiisu iska leeyahay laakiin dhacaankan iska qulqulaya oo soconaya malaxda ah ayaa ku arkaysa fistula la jiday samaysatay jiljileeca ayaan ugu sabab ah arag bawasiirna way la socotaa kan ku xiga hoosna waxa ku yaalo hadaa ujeedid fishar wax la dhahay wuu jeexsan yahay jeexid hadaa ujeedid jeexidaas ayadana fishar ay dhahaan aad ay u xanuun badan tahay had si fiican u arkayna haddii kuwo kale aan diyaariya ku jiro habka loo daaweynayo ay tahay mid kale midka kusii xiga soo socda sawirka kale kan waa aragnay soo ma waan aragnay waa hagaag midka kusii xiga okay kan hababka kala duwan oo asagana oo maxaan ku dhahaa ay u samaysan tahay anatomically waaye jidka ay u samaysan tahay maxaan ku dhahaa hoos ay u samaysan tahay midka ku xiga marka kan waa habka dhiiga meesha dhiig fara badan ayaa imaada soo muhiim waaye marka qof weyn oo kale oo bawasiir ama waxyaabaha qaarkood oo dhiig uu ka socdo wuxuu u keeni karaa anemia ama ironta oo deficit ku dhaco markasta iska qulqulaya qofka musqushu ku arki karaa marka fishar uu soo baxa ama dhaawac yar uu ka samaysmo aad ayuu u xanuun badan yahay musqusha markuu tago oo saxarooda ilaa saacad oo kale xanuunku haynaa iyo markuu saxaroona kan waa fisharkii la dhahay ama dilaac derbiga dilaacsan waaye dhalinyaradu ku badan yahay kan dhalinyartu aad ugu badan yahay marka waxa kaliya la sameeya waa la jeexaa qofka dhakhtarka qaliinka ah wuu sii meesha jeexan ayaa la sii weynaanaya saa ujeedid technicas markay sii weynaato ay radsatano hadhow xanuunkii wixii dhan way baaba'ayaan so fishar aad ugu badan yahay dhalinyarta waxay fikradda ka dambaysa hadduu jeexnaa oo ku xanuunaya in lasii weynayo lasii jeexo meesha waa raysanaysaa dhiig badanaa imaanaya cariirigii yaraa oo xanuunka keenayana wuu nafisu sii noqonaya so kanna waa nooc ka mid ah malaxda say u fadhiisato hoos meelo kala duwan ay fadhiisan kartaa meesha isfinteraha ama xiranaay korkiisa dhinaciisa habba malaxda laftirkeeda meesha ay fadhiisato magac ayay leedahay ee si gooniya loo xisaabaa cabdixaafid hadda aad dadka qaliinka ah waxaa u yaala sharci ah meel madax ku jirto haddii la furo lama tolo meeshaas waa in dareen ay iska socotaa jermis ayaa kausgareeyey jermiskaas intuu ka qolqolayo so weligeed lama tolo meel oo maxaan ku dhahaa malax fadhiisata meesha rabta ahaato laakiin tan ugu daran marka haddii malaxda beerka ay fadhiisato markaas dareen tubooyina laga siiyaa qasabadooda la geliyaa way ka soconaysaa beerka oo kale meelo badan ay fadhiisataa maxaan ku dhahaa malaxda oo qofka bini aadanka meel kastay tegi kartaa ma maskaxday xataa geli kartaa laakiin hadda waxaan ka hadlayaa hoos kan kaa ujeedid waxa waaye marka ay samaysanto jidkii kii hadaayan kuu sheegay fistula la dhahaa jid ay samaysanto oo maanta oo dhan malax ka soconayso qofku uu dhibsanaya surwaalka ka halaaba ama matantiga wasakh ka noqonaya waa jid asagana kanna daawadiisu waxa waaye meesha jeexan oo waxa ah ayaa lasii jeexayaa oo waa la weyneynayaa waa la daaweynayaa so xoogaa maanta waxa aan ka hadlayo stranger dadka la noqonaysaa waaba jeexan tahay maxaa usii jeexaysaa waaye waxaa loo sii jeexaya in ay raysato meeshiina weynaato oo daawooyin la siiyo wixii ayna baaba'aan haddana way kala duwanta habka loo daawey hadda waxaa soo baxay koollo ama glue oo lagu shubo meesha oo lagu xiraayo jidkan hadda samaysmaayo laakiin marka ugu horeysa inaad nadiifisid waaye so malaxdii wixii hadda ku korxirsid infectionka ma raysanayso marka ugu horeysa inaad nadiifisid oo normal saline waxaa lagu dhaqaa iyo anti disinfectant meesha nadiif markaa ka dhigtid ayaa kooladii ku dhex shubaysaa oo meesha jidka waa xiraysaa kan ku xigo kan waa habka ay u samaysanto fistoli hadda aan kuu sheegayo dad badanaa qaba kan wuxuu ku badan yahay dadka waaweyn meeshii kii hadaaya xanuunka badnaa dhalinyarada uu ku badan yahay kaas xataa wuxuu saameeyaa dhalinyarta haddii rag ay yihiin ragnimadooda wuu saameeyaa oo mashaakil u keenaa kan dadka waaweyn uu ku badan yahay oo derbiga iska samaysmaya derbiga jileec noqonayo marka wuxuu samaysmayaa meel ka mid ah ayaa jid ka samaysmaya hadhow malax ayaa soo qulqulayso oo baxayso fistala lagu magacaaba habab kala duwan inta hadda waxaan ku tusayaa dhinaca malaxda sida ay u fadhiisato ay kala duwan tahay ayaan dhinacan in ay samaysanto fistalada jidkii ay samaysanto mashaakil
mushkilaadka hoos ku imaan karo dhan ayaan caawa macnaha xoogaa kor ka tataabanay. Proctology la dhahaa dhakhtar qalin oo gooni ah ayaa oo sub specialist ka waay waxaan laakiin habka loo habeeyo oo loo gudbiyo ama loo sameeyo way sahlan tahay in la fahmo ayaa loo baahan yahay because qofka xanuun kaliya ku la imaanaya tissue-ga oo maxaan ku dhahaa markuu musqusha taro oo dhiig ku tirtirmay markaan tirtirto dhiigayga aan arkaa uu ku dhahayo waxyaabahaas iyo xanuuna jiro calaamado yaryar kale kan waa qalab lagu isticmaalo hoos lagu fiiriyo geedahan markaa gelisid way kala duwan yihiin anoscope baa lahaa kan kalena hoos jira retoscope ilaa reta tagi kor anatomic ahaan way kala duwan yihiin oo anoscope ma qaybta ugu hooseyso waaye ma fahantay iyo rectum qaybta kor ilaa saxarada meesha ay soo fadhiisanayso waaye soo qalab kamid ah oo loo isticmaalo oo lagu fiiriyo meesha in meesha xataa ulcer jiro Cabdixafido derbiga xataa waxa kan waxa waaye habka oo meesha ugu dambeysay mindhicirka saxarada ay soo fadhiisato nervayala joogo waxay sheegaan inay meesha buuxdo wax alla wixii ka badan boqol maxaan ku dhahaa 120 iyo hal litri xogaa oo kala aday ay gaaraan ama 700 ay gaarayaan oo millimeter ah maskaxda waa loo sheegaa meesha saxara fadhido maskaxda kor markii loo soo sheego way soo jawaabaysaa hoos isfinteraha ama waxa meesha ku yaal oo xiran ayaa la furaya qofkii waa loo sheegaya musqush inuu tago musqush uu tagaya meesha furmayso saxara saas ku dhigay kan waa system nervosa maskaxda habka ay u kontrolsho qofka sidii u saxroon lahaa in loo sheegayo markuu ugu horeyso waxyaabo badan oo Ilaahay naga qariyaa jiro waxyaabo gudaha ka dhacay wadnaha intuu garaacayo mindhicirka intuu dhaqaaqay acid inta soo saarayso waxa soo dhan waa laga qari wax anaga soo maskaxda ayaa loo sheegaya oo gudaha ayaa sheegayso involuntary wax lagu magacaabo kan waa masawirkii hore asana abscess ah iyo fistulas ay u sameysmaan iyo malaxdii kan ku sii xiga kan waa qalab kale oo loo isticmaalo hoos oo la geliyo oo la fiiriyo qofka in mashaakilka noocee jiro ma jeexida jirto ma dhaawaca meesha ku yaal ma booli baa ku yaal ma bawaasiira jirto ayuu qalabkan ku kala sheegaya oo kala duwan waaye laba nooc kan waxa waaye dhabarka gadaal kan waa dhabarka waaye dhabarka gadaal ayaa meesha ugu dambeeyta lafta dad qaar ayaa waxay ka soo baxdaa nabar malax gasha bilonidaala laha tinta ayaa dhalinyarta baabuurta wada ayuu ku badan yahay kan timihii soo baxay ayaa gudaha ku noqonay infection lagu qaaday weerar lagu qaadaya soo malaxa sameysmayso oo dhabarka ma aha hoos waa dhabarka ayaa waay soo bilonidaala laha ayadana hadda saa u jeedid maxaa daawadeeda meeshii markay samaysato haddana in la jeexay noqonay oo malax sharciga madax u yaalo dhan waxay tahay in malaxda meesha laga bixiyo open ay ahaato furnaato waaye sharciga oo surgery u yaalo lama toli karo lama xiri karo haday waxaan ku sheegay rubber band kan bandage-ki haday sheegayn hada casuustid bawasiirta waa xirayna xinjirka la xiro waa kana waa xiraysa dhiigga laga joojinaya ayada tartiib soo go'ayso oo soo raaci doonto saxarada soo raaci doonto soo hadda tan ugu dambayso oo soo baxday qalin oo la xirayo kaliya oo qofka la deynayo waa tan xataa haday weyn tahay haddaad xirtid oo dhiigga ka joojisid ayada kaligeed go'ayso bambirada meesha bacda ku xiraysid si fiican u xirtid oo adigoo arkaya bahala la isticmaalkana balkan la isticmaalaa rubber band ligation lagu magacaaba marka xirtid iska daa marka faraha ka qaad dhiigii tartiib maalmo ka bacdi soo u yaraanay xubka oo dhan meesha dhan way soo go'aysaa marka adoon qaliin iyo wax weyn aadan ku sameyn ayada ayaa bogsanaysa marka aysan wax complication ay lahayn doleelna aysan wadeen kan haddana mid kale waa stabler waaye waa la gelinaya gudaha oo ku qabanaysa bistolad oo kale waa ku garaacaysaa xoobkii oo bawasiirti wixii dhan ayuu ku soo gooynayaa oo waa ka soo bixinaysaa qofkana meesha suuf dheer ama gaarsa la gelinayaa waxaa la gelinayaa fasolinka afka geedka la marto oo kale la gelinaa qofkana waxa waa cuntada laga ilaalinaya boy hospitalka xogaa ku jira waa kana ayada oo gooynaysa habkii oo loogu talaay birta kore gelinaysa den kan kala gelinay waa isku qabane waa isku xiraysa den hal mar sidii bistolada oo kale aad shut ku sameynaysa qad asiina hal mar soo gooynaya waa hab asagana kii hadda rubber band kasii horeeyay oo asagana aad u faa'iido lahaa oo macnaha fududeeya qaliinkii goosmadii maalin kasta waxba isbedela waa ka noocii oo kamid aha goosmada waaye oo la gelinayo laga jaraayo markay aad u dhibto waxaan loo jaraayo waxa waa Cabdixafiid wax kale ma because sababtoo dhiig fara badan qofkii ka baxayo anemia u keeni karaa xanuun fara badan u keenaya asaga haddana mararka qaarkood wuxuu keenaya in caloosha fadhiisato ama constipation u keenaya because sharciyaasha jiro oo hadda dawladaha adduunka tartamayaan wax kasta waxa lagu bilaabaa laparoscopic
hadda gacantii jeexitaankii wax lagu jeexaya wuu sii yaraanaya marka ugu horeysa qalabka la isticmaalaya tan waxaan uga faa'iidaysanayaa in dadka Soomaalida loo soo warqad loo soo diro qaliin loo soo diro in aysan dhihin waa diidnay kan ajeeda muruqa ugu dambeeyo isfinteraha wuxuu waa 10 ilaa 15 millimeter kan aniga waaye oo la sameynaya dhaqaatiir Talyaani qaliin la sameeyay aan isla qalayno waayo kan waxaan qalaynay sanbab ayaan bixinaynay oo laakiin completely ka duwan balax gashay oo kansarna ku dhacay so completely waa ka duwan tahay marka waa la furaya toraajaha xabadkaad furaysaa kan hal sanbab dhan aan ka saarnay ninkan waan ka bixinay kansarna wuu qabay malaxna way gashay so waa completely waa laga bixiyay inkastoo laba lafood oo kale ay naga jabeen marka la furaayo furitaanka feeraha hadduu qofka jilicsan yahay qatar way jabayaan oo marka dibaarikator ku furaysid laakiin feeraha saadaqan haday jabaan xataa kaligood iskabaayo oo ayaga sameysmaayo waa xirisa laakiin sanbabkii ka saartay waa badbaadisay hadda technique-hada say u socotay oo qalin loogu socday ninkan robot ayuu wax ku qalayaa okay marka intuu ku jira dharkii iyo gacmihii la dhaqay iyo labiskii iyo wixii dhan waa laga tagay halkaas ku jira miiskaas loo saaraya qalabkaas qofka qalaya so adduunka tartan aad u fara badan ayaa xagga qaliinka loogu jiraa anaga ka hurudna maahine mashiinka ku shaqeynaya computer aad ku xarbinaysaa wadaadka intuu ku fadhiyaa computerkaas qalabkaas aad wax dhan ku sameynaya laakiin patientka waa lagu sooxinaya halaha kaliya oo jir waa in la sooxiyaa patientka so birta maxaan ku dhahaa robotka ama mashiinka ayaa tartiib qalay halkaas ku jira wax cabiran waay oo jirsan America adduunka ugu horeeyaan Mareykanka aad u isticmaalaan robot maxaan ku dhahaa mashiinada marka intaan hadda bawaasiirtii oo dib u soo noqotay fistoladii wixii isku jiro ayaan halkan aan ku sharaxaynay marka waxaan u maleynayaa in aan enough time aan siinay kan hadda u jeedid qaybta ugu dambayso oo dheefshiidka ayaan maanta caawa aan ka hadlay saas daraadeed aan sawirkan u soo qaatay dheefshiidku wuxuu ka bilowdaa afku ka bilaabanaya ilaa dhuunta caloosha mindhicirka weyn mindhicirka yar qaybta ugu dambaysa marka aad imaanaysaa oo mashaakilaadku ku imaan karo kan waa kii bawaasiirta hadda aan sheegayn oo kala duwanaa waaye marka doctore markii dadku ay mawduucan soo qoreen aan idin soo gudbinayay يعني وإلى يرد نظر يرد ضدك عنعنية أمر لبي إلها لكن هذا مركز شرحذي بد بين قضايا عاد أيوة أنتهي عاد أيوة أنت وحن كل هاي وحاجرو نختار بروكتولوجي لده أو قلينا أو هوست خالبس ملاح هنقطه فيستول هنقطه فيشر هنقطه بواسير هنقطه هل شيء كليه كم دعوس haddana weli waxaan kaasii ilowaan kuu sheegin marmar in asaska dhala oo ciyaalka fara badan dhala inay alaabta dhan hoos ay usoo dhici karto oo imaanaysa incontinence saxaradii aysan calin karin kaas asagana qaliin kalo oo aad u adag marmarka qalaan waxaa la soo bixiyaa muruq ka mid ah muruqa lugta ayaa la soo qaadaa qaybta uu ku dhagan yahay inta aan laga soo fujiyaa soo waxa ku wareejinaysaa qaybta hoos oo muruqi sahalka noqday koraad u qaadaysaa waa kula xiraysaa electricity ayaa ilaa 3 bilood lagu shaqaysiinaya muruqa awal wuxuu ahaa muruq lugta ka tirsanaa hadda waxa u wareejisay qaybtii hoose ayaad u wareejisay electrica ku xiraysaa soo oo shaqeynaya qofkii automatically after 3 months inuu automatic u saxaroodo mid kale Cabdixaafid barnaamij aan sameynay wiil soo wactamaya hadaa xasuusatid oo kansarka bawaasiirta intay ku daahday kansar ku noqotay then waa la qalay waxa loogu dhijiyay colostomia dhinac ayaa loogu dhijiyay meesha ayay saxarada ka imaanaysaa soo hadaa sahlatid isbedesho dhacaanka isbedesho kansar uu isu bedeli karaa tan kale sharciga jiro hadii 5 cm qaybta hoose ya 5 cm hadii hoose ay u dhowdahay soo mar dambe laguma soo tali karo laakiin hadii ka weyn tahay 5 cm uu ka sareeyo نفهميسا معناها 5 سنتيمتر هدي كسي صارت إلا جودها كرة جاريسيد من دعيرك مركز تمبروري بنانك أو جحرت وقفك كسحروناي after 3 months وتكوسو قاعدة ماشي سكو حريزينسا مركز كانسر كي أجرتي أي سمع لكن هدي ماشي أو 5 سنتيمتر كلية ماشي على جاركاس وكله مرة بلغم سو علين كرو أو دنا أيو كحارة أنتو كدمانايو taasna very dangerous way soo arag meesha waxa ay wadato hoosa problemka saada adiga sheegaysa daysay wax salana u haystay laakiin wax aad u khatar ah way aad waxay kamid tahay
aqoon la-aanteeda aniga shaqsiyan no. daawada laakiin aad baan kugu mahadcelinaya waxaana jecelahay dadweynaha daawanaya ayaga laftigooda inay ka faa'iidi doonaan intooda sideedoo kale ka indhala ama ka dhagala dhinaca daawooyinka waa mahadsantihiin doctor aad baan kugu mahadcelinaya cabaar baan waxaan ku haynay taleefanada dadka insha allahu tacaala markaan waxaan jeclahay awada kasoo qaadna daawadayaal marka koowaad waxaan idinkaga mahad celinaynaa daawashadiina barnaamijkan iyo qeyb qaadashadiinaba fadlan waxaan ka codsanay inaad tv-ga iska baktiysaan si aan isku maqalno mawduucaanu ka hadlayno waa baabasiirka ama bawaasiirta ama waxa hemorrhoidka lagu yidhaahdo iyo waxyaalaha la xiriiro dhakhtarku sida quruxda badan u sharaxay mawduuc kale aanu foodi daaraynahay insha allahu tacaala ma jiro waa kusoo dhaweynaya qofka ugu horreeya walaal magaca alo asalaamu calaykum salaam waraxmatullah soo dhawo walaal walaal xabiiba la yidhaha jarmankaan kasoo hadlayaa dhakhtarkaan rabaa inaan su-aal weydiiyo soo dhawo xabiiba walaal waxmay ahaydeen dhakhtarku dhibaatadanu ka hadlaya ayaan qabaa markaa adiga sanad iyo bar ka hor ayaa lay qalay ciidanka yar in yar bay yaa ka joogta kan weyne waxbay ka jareen adi 3 bilood bay caloosha furnayd alxamdulilah adigu dhibaato badan kadib ilaah weyne waaxdi wii caafiyey buray ahayd burooyin badan oo caloosha ku faafay cudur caruurnimadii kugu dhacay weeyaan bay yidhaahdeen marka muddo badan ku jiray marka caloosha markay fureen xameetidana way bixiyeen dhagax baa ku jiray xanuunkii baa tegi waayey baaritaankii dambe ay arkeen oo yidhaahdeen xiidmaha cillad ku jirta markay fureen waxay yidhahdeen caloosha dhib badan baa ka muuqtay wixii aan ka gaarnaa goyni waa gartay 3 bilood bay calooshay fureen way toleen haddana mar kaley furatay alxamdulilah haddana way toleen waa hadda sanad aduu 2 sanadood oo dhidho waan fiicanahay dhakhtarka waxaan weydiinayaa matalan ciladaydaas oo kaleeto uradana waxay yidhaahdeen yacno ma xuma laakiin kansar bay ayay yacno u dhow yahay laakiin wax nagu cusub weeyaan oona aada u aqoonin marka hadda waan fiicanahay inkastoo cuntada iska ilaaliyo laakiin haddana weli cabsi baa igu jirta dhakhaatiirtu waxay warsaan mar walba saxarada say tahay waxyaalahaas way fiican tahay alxamdulilah ilaa hadda waan fiicanahay wixii soo maray dhakhtarka waxaan weydiinayaa maxaa talada ii siinayaa waana ku faraxsanay dhakhtar af soomaali ku hadlayo yacni inuu arrintaas sharaxo marka arrintaydaasaan rabaa inuu waxoogay bal faahfaahin iga siiyo badan kulley khadka kuma sii jiri karaan u malaynayaa hal su-aal leen ku weydiin lahaa walaal hadda maadaama aad tiri caloosha waa la furay wixii dib ma loogu celiyo wixii dhan ma la habeeyey wixii dhan way habeeyeen hadda caloosha waa caadi okay waa ku fahmay talada ugu fiican aan ku siinayo oo waxa waaye cabdixaafid gabadho in maxaan ku dhahaa horta cuntada ay cunayso dietka fibra fara badan inay ku jirto biyo badan xoogaa inay cabto exercise hadday samayn karto inay samayso hadday obesity xoogaa culeys uu jiro in culeyska la rido maxaan ku dhahaa marka musqusha la gala inaysan ku daahin maanta dhan aysan fadhinin tan kaloo xagga kansarka oo waxaas wax xagga ilaahay rabbiyan wato waaye weli dagaalkooda lagu jiro si fiican aan loo garanayn unugyo iska waalanaya ayaa kansar la dhahaa oo ilaa waxaa jirta 200 oo nooc oo kansar oo qofka bini aadan ku dhici kara marka kan nooc ka mid ah waaye nooca oo tishuga uu ku dhac ay ku xiran tahay marka inta hadda aan u sheegay haddii ay samayso ay ku socoto oo caloosheeda samayso cabitaan caloosha ku socoto sahal ah in ay samayso mana la rabo diyaareya fara badan soomaa dadka aad haddaad abuse ugu samaysid maxaan ku dhahaa burgaantooyinka dhaawac ay keenayaan soo dhexdhexaad wax walbaba suu nebiga dhahay dhexdhexaada ugu wanaagsan marka halahaasan kula talin lahaa inaysan ka fekerin tan kalena stresska inay iska ilaaliso aysan ka fekerin cudurka kaasna mashaakil kale u keenaya mental hadduu keeno tan musqusha diidaysay noqonaysaa soo dhibaatadii way kordhaysaa xabiibo aad iyo aad baan kugu mahad celinaynaa qayb qaadashada barnaamijkaagan caafimaad badan oo ku rajeyna walaal idinkana sidoo kale jazaaka allahu khayra thank you wayaak xabiibo from Germany waa hagaag xabiibi waxaa hadaladeeda ku jiray inay tiri intaa ka badan telefoon kuma sii jiri kara iyadoo u naxariisanaysa walaalaheeda kale ka dambeeya qofka hadduu telefoonka soo galo uu xanuunsan yahay ma doonayno inaan dedejino laakiin waxaan jecelnahay insha allahu tacaala ilaa maadaama caafimaadku waa muhiim waxaan jecelnahay inuu qofku noo sheego taariikh yara uuna siiyo noloshiisa magacayga waa saas halkaasaan joogaa intaasaan jira khasa maaha magacaagu inuu kii runtaa yahay because barnaamijku waa caafimaad dad waxaa jira aan jeclayn in magacooda la ogaado مثلا magacaaga waa bedeli kartaa meeshaa joogtay dhakhaatiirta saa la kulantay xanuunka uu ku hayo noocuu yahay inaadan dhakhaatiir la kulminin saa markaa noo sheegto waqtiga isagaa iska soo yaraanaya
laakiin haddii su-aal walba anagu aan ku weydiino waqti badan baa lumaya walaalo fara badanna khadkay ku jiraan marka sidaa xabiibo ala isku yara naxariisto lain kaloo ku xiga assalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi kusoo dhaweyna walaal hooyo soomaaliyeed UK baan kasoo hadlaya walaal aad baan kusoo dhaweynaynaa walaalow sanadkii 2010 ayaan waxaan isku arkay dhiig markaan suuliga galo kabacdina dhakhtaradaan u tegay marka waxay igu yidhaaheen baabsiir baad qabtaa wax calaamadahoo iga soo baxayna ma arag oo dabada wax nabaroo iga soo baxay ma arag dhiigga unbaa markaan suuliga galo iga yimaada kabacdi dhiigga ilaa iyo hadda marmar ma badna bil walba maaha maalin walba maaha waa marmar marka wuxuu sameynayaa waxay igu yidhaahdeen liquid wax la cabo oo bay isiyeen oo afka laga qaadanayo waxay yidhaaheen baasha cab baashaas caloosha ku horjilcinaysa kadibna ma ku noqon marka wax hadda dhiigaho marmar buu iga yimaada mar walba maaha laakiin waxaan xoogaa xanuunkayda dareemaya halkaa sare oo gumaarka xagga midigta lugta xigta oo baan marmar xanuun ka dareema bal waxaan dhakhtarka weydiin lahaa calaamada dhiigga uuna aanan waxaana isku arag wixii macaloosha talow iigu jiraan miyay iga tageen ma garanayo dhakhtarkiina walaal kuma noqon marka waxaan ogaan lahaa bal ma mid hurdaa jirta oo meel iskaga qarsoon walaal bal insha Allah thank you hooyo Soomaaliyeed okay su'aal aad u wanaagsan ayayna weydiisay gabadha haddaan markaan sharaxaynay hemorrhoidaha waxay leeyihiin libalo ama garaadooyin ilaa 4 gaarsiin marka tan hadda waxaa laga yaabaa in level 1 ama level 2 meelahaas ay tahay taas waay mararka qaarkood dhiig ay tishiga uga arki jirtay markii caloosha hadda daawooyinka waxaa ka mid ah in caloosha qofka la dhaqaajiyo ay soconayso soo meeshii dhiigga mu ku haraayo oo caloosha way fududaanaysaa marka caloosha ay degan tahay ama xataa naagta markay uur leedahay culeyska caloosha saaran ayaa riixaya oo keenayo soo tan waxaa dhici karta laakiin waa inay jeegaraysaa lagu fiiriyaa maxaan ku retoscope ama in mar walba mar la kontroolaa 6 bilood haddii dhiigga isku aragtana si dhaqsaa dhakhtarka ugu gomto marka waxaa OGB u gudbinaya proctologist ama dhakhtarka qaliinka ayaa loo gudbinaa asaga talo wuxuu siinayaa in la qalo ama in bomaati isticmaasho ama daawo isticmaasho meeshaas ay ka heli kartaa aad iyo aad baa umahadsantahay hooyo Soomaaliyeed iyo Dr. Abshirba waxaan jeclahay inaan markaan qof saddexaad fursad siino intaanan soo deynin xayeysiinta walking clinic oo dadka qaarkood laga yaabo inay doonayaan ciwaanka iyo taleefanada laga helo dhakhaatiirtan haddii la yiraahdo waxaan kaloo insha Allah tacaala soo deyn doonaa caawa bashaaro idinku haynaa dhakhtar Talyaaniga inuu kusoo biiri doono dhowaan ajnabi ah xaruntan walking clinic kaasoo qaabilsan ANT ama sanka cunaha iyo dhagaha insha Allah tacaala oo specialist ah takhasus gaar ah insha Allah tacaala waadna la soo xiriiri kartaan insha Allah tacaala walking clinic wixii macluumaad arrinta ku saabsan haddii cunuhu ku cuncunayo haddii sanku ku cuncunayo haddii indhuhu mararka qaarkood hay feverka ama samboorka xasaasiyadu ku hayso insha Allah waxyaalahaas oo dhan dhakhtar qaabilsan oo specialist ah kadib markii idinku aad su'aalo fara badan soo qorteen dhakhtarkaas ayaa la idin keenay insha Allah tacaala ka faa'iideysan doontaan ayaanu jecelnahay waa hagaag la in kale ku xiga assalaamu calaykum hello السلام عليكم salaam waraxmatullahi kusoo dhaweynaa walaal magaca magacayga hooyo Soomaali waaye walaal waa idin wada salaamay adiga dhakhtarka waa gartay hooyo waxaan rabay inaan ku weydiiyo dhakhtarka rabay inaan weydiiyo walaal gabar waxaa jirta caloosha xanuunta marka baabasiir hoosta kama laha laakiin dhiiga ka yimaada marka dhiig yar maaha waa wax badan marka intuuna ka imaana madaxa aada xanuuna dhiigaas isku aragtaa marka marban dhakhtarka tagnay dhakhtarkii wuu fiiriyey wuxuu ku arkay hoosta laga fiiriyey waxay yidhahdeen waa baabasiirta tan caloosha marka way ku toogteen meesha waxbay kasoo bixi waxbay ku toogteen kadibna way kusoo noqnoqotaa marka dhakhtarka waxaan rabay inaan weydiiyo sidee riskigeeda sidee tahay iyo sidee loo baabi'in karaa ma wax oo nolosheeda ilaa ay nolosheeda ay ku xiran baa mise wax la baabi'in karo thank you
okay bawasiir oo recurrent ah bawasiirta haday mid gudaha ah iyo mid banaanka ah so taa haday sheegayso iyo mid isku jirto so ayadana hadii ka haysatii oo maxaan ku dhahaa gudaha ka hadlaysaa oo la sii toogtay soo ma oo la toogtay mar haddii la toogtay oo la gubay meeshii la yeelay badanaa recurrencada ama soo noqoshada way yar tahay probability haddii aysan qabin hal shay kale in la fiiriyo waaye dhiigga in problem xinjiroobidda coagulopathy inay jirto oo mararka qaarkood ay caloosha riixaysa ama musqusha soo baxaysa derbigu iska soo dilaacayo oo iska dhiig iska imaanayo kaas in laga jeegareeyo ayaa aada muhiim u ah marka dhiig gaaraa jiro oo lagu jeegareeyo in dhiigga problem uu ka jiro mararka qaarkood dadkan oo dhiigga meesha ka imaanaya xagga kaliya xataa ka imaado waxay markay rumaysanaya musqusha ay galaan rumiga xataa dhiig uu ka imaanaya haddii wax yar saraan dhiiga dhaqsi isaga imaanaya so taas probabilityda waxa ay kusoo noqonayso xoogaa way yar tahay laakiin in lasii baaro oo la fiiriyo qaybta oo dhiig baxan maxaa keenaya ulsarna way jirtaa marmar derbiga oo xoqanna wuu jirayaa asoon bawasiirna jirin garta aad iyo aad doctor umahadsan tahay iminkana waxaan jecelnahay insha allahu tacaala inaanu ku noqono teleefanadiini intaana dhakhtarka dhowr su-aaloodo isku xigta weydiinin qof kaloo ku xiga ahlan wasahlan hallo waa kusoo dhaweynaya walaal cabdixaafid waa kaa qaadi walaalo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal soo dhawow magaca magacayga walaalo cabdixaafid shariif mukhtaar waaye yani oo london ka soo hadlayo south hall shariifow haasha cabdixaafid waa kuu ducayna haddaad t v-ga iska baktiyi saaxib insha allah waa baktina ilah idinkiis waa baktina soo dhawow cabdixaafid waa bakti shukran cabdixaafidow horta yani adiga dhakhtarka baa idin salaamay calaykum asalaam yani khayr adinsi insha allah yani leana nin dhan oo yani oo dhakhtar oo meesha fadhiya iyo macal adiga oo yani dadka soomaali wax uu sheegaayo oo lacag la-aan wax uu sheegayo taas bor sadaqa waaya waa kaaga marka sadaqadaas ilaahay yani alla idinka aqbalay insha allahu tacaala yani kole aan caawa su-aal aad u weyn ma qabo yani waxa keliya dhakhtarka aan weydiin arag waxay ahayd maaragtay waxaan yani musqushayda badan yani wax yar haddaan xoogaa cunto cunabo yani musqushada aadaa marka waxaan dhakhtarka weydiin lahaa taas ayadana yani waxaan ka hadlaynaa caawa laga hadlaya yani ma keeni karaa bawasiirka yani ma tahay arrin oo bawasiirka ku saabsan ma noqon kartaa intaa keliyaan weydiin lahaa khayr alla idin siiya insha allah shariif from london aad baan kaaga weydiin lahaa shukran waa kaaga mahadcelina qaadashadaada maxaan ku dhahaa marka dad ayaa jiro reflex oo nerva ah oo markay cunto cunaanba dhaqsi musqusha aadaya laakiin wax problem ah oo xagga bawasiir ah ma jirayaan waxaa keliya daran haddii diyaaraya ama shuban uu yahay oo kulul oo derbiga xoqaaya hadduu yahay keliya ayaa daran laakiin reflexdan oo maskaxda ah oo musqusha aadida markuu wax cuno dadaa waxay jira markii subaxii ugu horeyso kafee ay taabtaan horey musqusha ka aadaya saxaroonaya so wax problem ah oo ka welwalayo oo ma jiraan haddiise waxa aysan ahayn shuban oo kulul oo icid oo kale ah derbiga xoqaay oo maantana soo noqonay haddii iska saxaro caadi ay tahay mashaakil ma jiro aad baa umahadsantahay doctor adigii shariif ba waa mahadsantihin labadiinaba waa hagaag layn kaloo ku xiga ahlan wasahlan halo asalaamu calaykum cabdixaafid calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaalayso universal t v waa wada salaama insha allah waa kaa qaadnay aad baan kuusoo dhaweynaynaa xaggee naga soo wacaysaa walaal waa london idinka soo waca waa hooyo soomaaliyeed ahlan wasahlan cabdixaafid waxaa raba dhakhtarka inaan weydiiyo waxaan shubanan aan leeyahay markasta musqusha markaan galo waan shubmaa debriyena way haysaa waa gartay arrintaas bawasir miyay keeni kartaa caloosha dhakhtarkaaga ma u tagtay maxay ku yidhahdeen g b ga ma la xiriirtay information kalena si maya g b dhakhtar meelna maba aadinba waa adiga 2 week camal laba waxa uu leeyahaayaba waa wax hadda la yimid aanay ahayn wax iska socda wax iska socda maaha waa wax hadda la yimid okay mararka qaarkood ayaa waxaa jirto in qofka biniaadanka uu la kulmo waxyaabahan qaar ka mid ah ha noqoto maxaan ku dhahay habitkiisa ama isbedel ha noqoto infection ha noqdo ama intestinaha laftirkiisa ama madhicirka infection ha ku dhaco morbid crohn wax la dhahayo colitis ulcerosis way badan yihiin infectionada magaca waxaa loogu daraa saa la socotid qofka markaas helay marka haddii waxa laba wiig ay yihiin maadaama diyaariyada ama shubanka derbiga mar walba maxaan ku dhahaa ay marayaan ay mashaakil u keenayaan waad garan kartaa bawasiir ma aha laakiin kuwii kale hadda aan sheegaynay ayaa xoogaa derbiga inuu wax noqdo waxyaabahaas ayaa laakiin maadaama ay tiri oo wax yar haddii haddana waqti yar kusii darsamo waxaa wanaagsan saxrada xataa waa la baaraa
waa la abuuraa la fiirinaya waxa keenay waxa sababay waxaa jira colonoscopia wax la dhaho tubo hoos laga soo gelinayo derbiga dhan la fiirinayo cuduradan hadda aan kuu sheega coron iyo colitis ulcerosis waxyaabahaas oo cudurro chronic ah in laga baaro halahaas haddii la ogaado in mashaakil aysan jirin ay iska tahay wax temporary ah soo wax walwal ah ma jiraayo dibiryada maxaa keeni kara marka dibiryada ayadana gooni waaye waxa waaye aashitada caloosha ah ayaa keenayso mararka qaarkood waxaa jira jermis oo ku nool caloosha oo la dhaho helicobacter pylori haddii helicobacter pylori uu jiro soomaalida aad ugu badan yahay waana la daaweeyaa dowladda britishka waxay soo saartay awal 3 daawa la siinayay hal isbuuc la siin jiray hadda dowladda waxay ka dhigtay waxay aragtay inuu resistant waxa ma keeni kara leedahay gastriga laabjeexa badana kaasaa keeno soo helicobacter in lagaa fiiriyo ma lagaa fiiriye gabacad yar ma lasoo jaray ma la talaalay okay ma positive ma mise negative okay daawada waa qaadata marka okay mujida marka dadka noocaas oo laga daaweeyo badanaa acidka mashaakilka wuu iska soo noqnoqdaa wuu hayaa jermiska ma ku dhahayo laakiin acidita keenayso soo hiniinyaasha oo kuwii ku siiyeen aan filayaa oo joojiya dhacaanka acidka soo saaro subaxii la qaato cuntada kahor kaas inaa wadid waaye haddii marka wad marka kaas wad gaviscon kanay dhahaan caanaha oo kale markii zaid aad isku aragtid isticmaal tan kale dibriyada zaidka waxyaabaha ay iska ilaalin karto dhiiga maxaa keeni kara shubanka soo raacaya kaas derbiga oo xoqmo waaye shubanka derbiga oo xoqa markuu kulul yahay soo dhiiga uu soo raaci karaya oo maxaa la waxa dhici karta hada in bawasiir iska jirto waa dhici karta ama inuu derbiga saran yahay ama wada markaas oo kale rectoscopy ama colonoscopy hadii la isticmaalo waa la ogaanayaa waxa dhiiga keenay aad iyo aad u mahadsantahay insha Allah salaam alaykum waxyaag aad iyo aad baa mahadsantahay thank you qayb qaadashada gabar Soomaaliyeed doctor dumarku waa inta badan kuwa dhakhaatiirta u tago oo caafimaadkooda ka warqaba raggu waa ka duwan yihiin soomaalida raggeeda gaar ma rag oo dhan bay ay saamaysaa adduunka joogo dhan waxaa jira xubno dhib badan oo haddaan ragnahay aanan jeclayn in cid kale la wadaagno marka hadda waxaa laga hadlayay bawaasiir rag iyo dumarba kasoo baxda xoogaa iyana waxa laga yaabaa rag badan inay ku adkaato inay dhakhtar u tagaan oo dhahaan aniyo daaqada dambe arrintan maxaa kala hadlay wallaahi waa runta arrintan wuu jiraa kaas keliya ma ahe cudurro fara badan oo kala duwan saa sheegaysid ayaa jiro laakiin niyow maadaama adduunyada isbedelayso waqti fara badan uu socdo hadda waxyaabihii oo maxaan ku dhahaa la qarinayay oo dhan waxyaabo badan hadda banaanka la soo dhigay dhakhtarkana waa confidential oo tagaysid asaga intaas qofood uu arkayo waa la soo dhaariyay marka inaad ku qarsatid intii mashaakil weyn uu imaan lahaa oo hadduu kansar isu bedelo derbiga banaanka lagaaga xiro lagu dhaho laguma la celin karo taas maxaa khasaare taas ka weyn adoo dhakhtarka xishooda keliya taasoo hadhow bamaati iyo kareem keliya oo kugu daaweyn lahaa ayaa dhici karta marka waxaan kula talin lahaa daragga inaysan ayagana aysan wax qarsana iska sheegtaan ama ay maxaan ku dhahaa la saaxiibaan saa sheegaysa barnaamijyadaada hore dhakhtarkooda la saaxiibaan waxaad halkaa ka dhawaajisay dhakhaatiirtu inaysan sirta qofka xanuunsan aysan qof kale u gudbinin taas ma la ogola arrintaas culays iyo muhiimad gaar ay leedahay aad iyo aad mararka qaarkood waxaad arkaysaa dadka soomaalida ah inaysan ayaga dhexdooda isku kalsoonayn laakiin qofka ajnabiga ay ku kalsoon yihiin dhakhtarka soomaaliga iyo kan ajnabiga isku dariiq bay soo mareen arrintaa waxay ka dheh cabdixaafid raalli ah oo halkalan kusii darsanaya ma aha keliya in maxaan ku dhahaa in dhakhtarka cadaanka uu sir qarinaya runta haddii lasu sheego soomaalida waxay jecel yihiin dhakhtar talyaani wuxuu ii sheegay isagoon dhakhtar maqaar ahayn oo dhakhtar qaliin ah ayuu waxay ka furan jawhar ambulatoria ama clinic wax lagu arkayo dad dhakhtar ayaa joogay soomaali aad u fiican oo maqaarku ku fiicnaa asagii ayay saf u galeen oo dhakhtar qaliin ah markaas wuxuu yidhi aniga qaliin dhakhtar qaliina nahay maqaar kuma fiicni dhakhtarka ugu fiican Soomaaliya qolka kale ku jiraa ma saf u gashaan kaas u tagtaan marka tan waxaan ku darsanayaa in Soomaalida haddii ay fiirisid dhinac mararka qaarkood qofka dhakhtarka Soomaaliga in ma aqaan sababta si fiican uma fahmin laakiin in ninka cadaanka ay ka jecel yihiin laakiin xaqiiqadu markay noqoto dhakhtar Soomaali ah iyo dhakhtar cadaan oo laga yaabo inay isku aqoon yihiin ama kan Soomaaliga aqoon badan yahay kan Soomaaliga afkaaga kula hadlaya dhaqankaaga nidaamkaaga diintaaga haddaad fiirisid daawooyinka qortaan dhakhaatiirta tihiin qaar waxaa jira yani intaa dheer leeyahay magacii
oo aadan afkana kaga dhawaaqi karinin macnihiisana aanan aqoonin Sax. laakiin markii dhakhtar soomaaliya aad la fariisatid daawadiibuu kugu sheegaya af soomaali aad taqaanid wuu kaa qancinaya صح not only inaad cudurkii fahantay iyo wixii oo qanacday bal waxaa meeshii ka muuqanaysa dhakhtar soomaaliya ku gargalayna inuu joogo ها aad baan ku mahadcelina dib waxaan ugu noqonaynaa taleefanadeenii kalsoonida dhakhaatiirta in lagu qabo sirtaadana ay dhakhaatiirta gaar ahaan dhakhaatiirta soomaalida in knowledge ama cilmi ha noqoto ama secret qarin ha noqoto way la mid yihiin dhakhaatiirta kale way soo mareen waxaa laga yaabaa kan soomaaliya inuu kasii cilmi badan yahay aad iyo aad oo diintaadii dhaqankaana sii yaqaan doctor arrintaas waa arrin culays muhiima la aad baan kugu mahadcelinaya waxaan u rays garaynin waxay ahayd oo keliya in dadkaaga aamintid ayagaa hormarisid ayaguna maaragtay ay ku hagar baxaan maadaama ay dadkay soomaaliyeed yihiin meel kastoo aanu joogno insha allahu tacaala dhakhaatiirta ha ahaato macalimiinta soomaalida ha ahaato insha allahu tacaala kuwa diinta iyo maadigaba in ayaga lagu kalsoonaado oo wax laga barto waa daruuri waa hagaag waxaan jeclahay in qofku xiga u yeeray iminka asalaamu calaykum walaal halo ahlan wasahlan calaykum asalaam waraxmatullah waa kusoo dhaweynana walaal magacaa xageesa joogta waa magacayisayda baa la yidhahdaa waisland makaalo soo hadlaya ahlan wasahlan waa dhegeysanaya barnaamijka toobadu ka yara baxsan yahay warka la wadayna mooji waxaan ka hadlaynaa haddaan adiga iyo daawadayaasha kaleba xasuusiyo bawaasiirta iyo waxyaalaha keenay ee dhibaatada leedahay iyo sida in loo wajaha ay tahay zaynab ha walaal waa ku maqlaya cabdixaafid mawduucaasan ka hadlayna walaal waa ogahay walaal waa dhegeysanaya barnaamijka laakiin waxaan haar ugu ahay aad baan u xanuunsanaya waxaana laga hayaa sanka ka waran barnaamijka caawa sanka ma quseeyay laakiin waxaad moodaa inaad maqashay hadal aan dhowaan sheegayna aniga dhakhtarku waa maqlaya kaana waa la socday ninkan yimi kusoo kordhay ha waxyaalaha working clinic ay doonayso ay kaga jawaabayso baaqa bulshada soomaaliyeed ayaa waxaa kamid a in loo baahan yahay laakiin ninka dhakhtarkan caawa xaadirka waxba kama sheegaya awootooda kuma jiro may mawduucan caawa kama hadlayna laakiin haddaad numberka working clinic qaadatid ood balan samaysay dhakhtarkaas iyo adiga isaliya dabadeedna insha allahu tacaala goorma keenaysa dhakhtarka talyaaniga wasanka markaad numberka cliniga wacday ayagaa kuu sheegaya insha allah insha allahu tacaala numberkan aan kugu soo celinaa zaynab waxaana jecelnahay adoo dhakhtarkaa la kulmay anagoo halkan soo fariisan doono haddii ilaahay yidhaahdo insha allahu tacaala oo caafimaadeen inaad nasoo wacdo dhahdid waa ka booday waa ka zaynab from west london thank you qof kale ku xiga hello hello وهجاك waxaan jeclahay control roomka inuu qofka ka boodo halo walaal soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته soo dhawow walaalo waan daawanay TV-ga internet-ka hadda waan ka wade ha dhakhtarka waan ka helay xanuunadan uu sheegay waan qaar waan qabaa waa gartay waxa tilmaamaha ka dhageystay waan dhageystay sheekh dhakhtarka waxaan ku oranayaa dhakhtarkaygu waa hindi kowde dhibaatan qabaa wuxuu sameeyaa dhakhtarka maarta maxay ahayd xasuutanka guud specialista ima gudbiyo daweyn iguma weliyaa xageed joogtaa ana shaaxib london baa joogaa ahlan wasahlan wado tan bawaasiirta wuxuu siiyey dawale ointment oo amisol la yidhaha wuu siiyey dhowr sanaan qaadanayay waa gartay anoo jicitaan baan doonayaa waa ii diiday halkan ugu maxay ahayd aan specialista ugu dhaafaa GP-ga aan doonayaa okay haas su'aal fiican waaye mararka qaarkood cabdixaafid dad badanaa sidiisa oo kale arrintan haysato marka laakiin haddii uu bawaasiir ama dhiig ama wax isku arko ama xanuun zaid isku arko jidka oo looga boodi karo waxa waaye in uu tago emergency ANA-da marka ay arkaan badanaa junior dhakhtar arkaya junior dhakhtarkaas telefoon wuxuu u dirayaa dhakhtarka qaliinka haddii markaas la heli karo available uu yahay wuu ku imaana ku fiirinayaa haddii aan la heli karin junior dhakhtarkaas warqaduu kuu qorayaa daawooyin ku siinayaa NGB-ga referral kuu sameeyo uu ku gudbiyo dhakhtarka qaliinka marka waxaa leedahay haddii xanuunkiina kaa zaid uu yahay waxa real ANA-da emergency attack haddii مثلا walaalkan musadala walaala yaa walaal saddex galaa ha soo dhaxgal soo dhaxgal programka adaa iska leh horta ANA waan tii soo dhe dhakhtar turkish aan tigay waa gartay waxay ku soo celisay GP-ga ku naqa ku tiri warqad ma ku siin warqad way siiyay wuxuu yiri liista wuxuu siiyay GP-ga kala u guurtay maya warqad ayada qofka GP-ga ku dhahay uga GP-gaaga si uu kuugu gudbiyo dhakhtar qaliina wuxuu siiyay
waan cabashada markaan tusay walaalay dhakhtarada juniorka ahayd wuxuu gu yidhi either you can change maxay ahayd TB-gada ama warqada qaado oo kula noqo TB-gada warqada qaado GB-ga kula noqo warqada qaado ama GB-ga iska bedel marka waxaad moodaa inaan choice fara badan la siinin okay cami waxay ru yara kaadi doctor haddii dhakhtarkii sidaas uu leeyahay walaalkiina uu dhibaataysan yahay idinku ma caawin kartaan waa la caawin karaa waa la caawin karaa warqada referral loo qori karaa waa gartay waa hagaag maxaad intaa ku biirinaysaa walaal overweight baan ahay oday diabetic baa qabtaa aabahay wadna xanuun baa dilay allah u naxariisto dietitianka waan u tagtagaa wax kaloo qabaa waxay ahayd incontinence waxa la yidhahda afka qalaad soo ingiriis u yidhaahdo maxaa la yidhahdaa incontinence ha incontinence taasna way ku dhacdaa marka qaarkood meeqa jiraa tahay walaal waxaana 43 waana waa yar tahay nin dhalinyaraa tahay fiiri haye wad su-aasha maxay tahay marka xaggan dhanaca way xanuuntaa haye waxaan ka shakiyay maxay ahayd baasha la yidhahdo baasha la yidhahdo maxay ahayd prostate aan ka shakiyay iyo appendixka kala saar kari waaye prostateki maxaa kala saari weyde iyo appendix okay kan baa la saar waa fiicantaa la yidhahdaa gumaar ku xanuunaa okay hadda marka suga anaa kaaga jawaabay tan waa sahlan tahay appendix waxa waaye mindhicirka weyn meeshuu ka bilaabanayo ayaa waxa ku yaalo sida qayb yar oo maxaan ku dhahaa oo mindhicir yariisa saxarada gasho badanaa appendix markaas inflammation markuu ku dhaco appendicitis ay dhahaan ama dodazide marka waa la qalaqalina lagula degdegaa qofku wax badan ma haynayso 6 hours cirkay la gelaysaa calaamada lagu garanayna lablabo cuntadii ka go-aaya matag aaday macnaa mashaakilkiisa u badan tahay appendix wax iska soconaya maaha appendicitis infectionka ku dhacaya maaha waxa time iska sii chronic waxa maaha prostataha calaamadihiisa dhowr maraan ka hadalnay waxa ayay barnaamijyo badan aan ka sameynay waxa oo soo galaya kaadida problemkeeda musqusha markuu tagoon dhaqsi uusan kaadin karin kaadida xoogaa yar oo daahda markii kaadida oo dhameysto oo xoogaa ku harta weli uu dareemaya inuusan kaadida dhameysanin surwaalkii xoogaa ka qoyo ii sheeg maxaa xanuun marmarka qaarkood infection ayuu dareemi karaa so completely laba shay oo aad u kala duwan waaye calaamadaha uu kala sheegayo tan kale niyow tala waxaan ku siin lahaa ku sheegay dhakhtar winterka maart winterka winterka kaado aad u gubtaa wala ma winterka way winterka ayaa kaado inaan dabada u bixin yahay walaalkay waxaan jeclahay inaan ku xasuusiyaano kaaga mahadcelinahay kama hadlayno kaadida iyo barnaamij kuma saabsana barnaamij dhowr barnaamij baa waxaan ka duubnay mawduuca ragga laakiin waxaan rabnaa waxaan doonaya general medical check-upkayga caafimaadkayga dhan guud saan ku baari lahaa oo iska ogaan lahaa laakiin dhakhtarkiina u tagtay soo maahan inaan caafimaadkaaga dhan halkan loogama sheekeyn kara keligaa laakiin waxaan doonaya haddaan GB-ga truska naga kala lumay aan bedeli kari waaye aan xaafadii midaan ka bedesho waaye doctor laakiin qofku xaq wuxuu leeyahay GB-ga iska dhaafay adoo GB-ga jooga dhakhtarkaa bedelan kartaa GB-ga laftigiisa joogkan ma rabi kan dhakhtarka laftigiisuna xaq wuxuu leeyahay qofkan ma arkay muu doono marka maxaa u bedelan laadahay dhakhtarkaaga GB-ga oo gudihiisa qof kale uga arki laadahay ama xaafadaada dhakhaatiir badan maadaama GB-yal badan ay yaalaan isaga rajis garan laadahay oo sahlan waxaan u bedelan waaye heerkayga qaarna heerkayga inta kale aa ku jira caruurtii xaaskayga hooyada adi waa bedeli kartaa laakiin khasab ma ahan adi waa bedeli kartaa dhakhtarka caruurtaada iyo reer ku jira maaha in aduna khasab dhakhtar la leedahay waxaad bedelan kartaa dhakhtarka waxaad dhihi kartaa dhakhtarkan kuma qanacsani meel kale tigi kartaa maxaa yeele waxa laga hadlaya waa caafimaadkaagii weeyaan haddii lagu sii daahiyo ma doonayna insha allahu tacala dhibaato ku timaado maadaama aad tahay walaal soomaaliyeed waxaan kala jecelahay haddaan dhakhtarada soomaalida u tagay baaraan oo kharashkayga baxsadaan baaraan oo evidenceki isiiyaan ula tago oon ku dacwooyo ma fiican tahay aan ula tagayraa british medical boorka ula tagayraa lug waxaasoo dhow 2 sana liluminaya waktigayga dakhtare soomaaliya tagay clinigaas walking clinic centerka ah way soo baareen general clinic bay soo baareen general healthkay soo baareen
hagaag waxaan jeclahay dhakhtarku inuu waafiq doono inaad xaq u leedahay inaad second opinion raadsatid ama fikrad kale haddaadan ku qanacsanayn waxaas caafimaadkaagana u dagaalantid waa kaaga mahad celinayna dhakhaatiirtan haddaad doonaysa inaad la soo xiriirtid teleefonkooda dhawaan ayaan shaashada kusoo qoraynaa waana mahadsan tahay thank you I think waqti badan aan ku siinay mahadsanid walaal thank you waa hagaag layn kaloo ku xiga ahlan wasahlan hallo دكتور قفكاس إمام مقلايو إن شاء الله تعالى وحن هلو أول تي في إسكا مختي سولو هلو مقاولا سولو عبد الحفيظ هاولا عبد الحفيظ هوي صوماليد وايه واقرت هوي صومالي حقي جوكتا لندن سؤال هذا برنامج كو جواب هوي صومالي ولا muddo dheer ayaa baabasiirkaas ugu yaalay marka waxaan rabay inaan dhakhtarka weydiiyo muddo dheer oo laga joogo adiga 19 sano meelahaas mar la iga jaray waa garta markii la iga jaray kabacdi meelihii la jaray meel kamid ahaa waxaa kasoo baxaya muddo igu soo laalaabanayay hal meela wax kasoo baxayaan wax yaroo buruq ah kasoo baxaysa way cuncunaysaa markaasay soo baxaysaa wixii waa gartay marka daawo yaroo waxaa jirta hadda kahor dhakhtar iyo qoray oo boomaato camal ah oo la marinayo markaas waa isku laabanaa muddo kabacdi haddana waa soo laabanaya marka dhakhtarna uma aanan tegin oo dhakhtar uma tegin laakiin daawooyin waxaa jira farmashooyinka la gato oo ah boomaatooyin la iska mariyo marka kuwaas la use gareynaayo maahana inta dhakhtar u tegay maana sheegin maana arkin marka imisaad adiga iyo dhakhtar kala maqnaydeen may dhakhtar maba aana arkin baabasiirka dhakhtar maba aana ka arkin ma la qalin hore laakiin Soomaaliya 19 sano ka hor baa Soomaaliya lagu qalay dhakhtar muuse laakiin islaan muuse ayay ahayd markaas qof iga jaray gartay marka waxaa jirta mar waxaa jirta markaan musqusha fadhiyo kale xanuun aan dhibli gudaha ah ka dareemayo alo waa ku maqla walaal si fiican hooyo Soomaaliyeed mar waxaa jirta dhowrkii sanaba mar aan dareemayo xanuun sometimes aan aad u dareemayo oo gudaha ah markaan musqusha fadhiyo okay doctore waxaan aan kula talin lahaa waxay aada ugu eg tahay maadaama qofka oo 19 sano ka hor ay ahayd hadda waxaa dhici karta in bawaasiir ay aada ugu badan tahay calaamadaha ay sheegayso marka waxaa wanaagsan qalabkii haddaan aan ku tusay retoscopy in la geliyo la fiiriyo meesha marka ay xanuunka uu jiro ay soo bararto oo markaas inay u tagto markaas la arko xataa jibigu waa markaas way arki karaan way go-aan karaan iyo markaas daawona way siin karaan wayna gudbin karaan oo dhakhtarkii dhibkiina way arkayaan wixiina way arkayaan so hadduu gareydkii haddaa xasuusatid uu jiro ama teti gareyd waxaas uu jirona daawo inta sii siyaanay usii gudbinayaan dhakhtarka qaliinka hooyo Soomaaliyeed waa ka hadda ka bood insha Allah waa mahadsantiin caafimaad baan ku rajaynaa waa kaaga mahad celinaa qayb qaadashadaada dhawaan waxaa soo socda walking clinic xayeysiinteeda teleefanadeeda iyo ciwaankeeda meesha laga helo insha Allah tacaala waa guuto dhakhaatiir oo isku tagtay oo guntiga dhiisha isaga dhigtay insha Allah tacaala aqoontooda inay dadkooda u gudbiyaan iyo dadka ajaanibta waliba insha Allah tacaala oo maxay to macaamiisha la waa hagaag waxaan jeclahay line kale ku xigana iminka u gudubno assalaamu calaykum waa hagaag linekaas uu baktiyey line kale ku xiga hello walaal soo dhawo codkaaga kor yara qaado raaliya magaca walaal hooyo Soomaaliyeed waa gartay soo dhawo hooyo Soomaaliyeed barnaamijku waa la socotay aad iyo aad waa ku soo dhaweynaa waa maxay su'aashaada waxaan rabaa walaal inaan dhakhtarka weydiiyo bawaasiirka waan qabaa ma fahamtay marka hadda ka hor long time ago maraa liiga gooyay Soomaaliya marka hadda markaarkood markaan baby dhalabo wuu ugu soo kacaa haddana mar kale marka waxaa kalaa rabay inaan weydiiyo qoladan markaan dhakhaatiirtan la xiriiray bumaatay siiyaan teeda kale waxaa laga helay helicobacter infectionka la dhaho acid aad iyo aad u badanna waa leeyahay
marka mar walba markaan shubmaayo mar qaarkooda goosgabeeyana shubmo markaasoo kalena way ku kacaa meesha way ku kacdaa mafahanta marka waxaa rabay inaan weydiiyo cudurkaas asiga maadaama maanta aan jaanis weela dhakhtar soomaaliyeed inuu ii sheego cudurkaas isaga ma koosgaray kariyaa dhibaato fara badan inuu ii sheegna waa rabay okay hal su-aal walaalku weydiinaa diyaare maadaama shuban uu jiro mararka qaarkood caloosha ma ku fadhiisato oo musqusha macnaha ma yaraataa tagideeda okay debriya waa leeda okay helicobacterka gooniya loo daaweynaa waxay aada ugu eg tahay irritable bowel syndrome wax la dhahayo ayay aada ugu eg tahay irritable bowel syndrome ma fahantay waa cudurada kamid ah oo ku dhaca gastroenteritis oo ku dhaca xubinta maxaan ku dhahaa dheefshiidku ku dhaco marna diarrhea uu keenaa marna wuxuu keenaa constipation helicobacter waa la daaweeyey kaas laakiin waa different waa in asagana la siiyaa kaniinigii oo gaaska ah si ay loogu saro dibiriyadan waxyaabahan qaarkood waxaa jiro kaniiniyaal oo loogu talagalay aryada zaa'idka ah oo baabi'inaya ayaa loogu talagalay so this is specialist gastroenterologist ayada ma u baahna bawaasiirta qaybteeda ah hadday jirto taas markaas dhakhtar qaliin markaas qaybtaasu kasoo gelaya hooyo soomaaliyeed waxaan rabay inaan weydiin xarunta ma leedahay ma imaan haddaan imaado lacala london aan joogo maadaama london joogo qasa haddii aa imaadid dhakhtar helicobacterkaas iyo acidkaas waa la daaweyna okay waaya walaalo waxaan qor doonaa adreeska insha allah okay hooyo soomaalida waa kaaga mahad celinaynaa qayb qaadashadaada thank you doctor in badan waxaa ka dhawaajisay dadkuna ay soo celceliyeen dadka qaarkood inay hilib badan u saaran yahay xayr badan ay leeyihiin horey waxaan oga hadalnay xayrta iyo dhibaatada ay leedahay iyo cudurro fara badan oo kusoo dhuunta waa maxay xiriirka ka dhexeeya xaydha iyo bawaasiirta okay saa la socotid haday hadaladeena oo wixii aan sameynaynay waxaa ku jiro maxaan ku dhahaa xayrta ayaa ku jirtay sababta xayrta ah culeys miisaan ah ayaa jiraya adoomihii ama calooshii culeyskiisana hoos wuu riixmayaa hadda research dhaqsi oo mar dhow la sameeyey waxaa la ogaaday daraasad mar dhow la sameeyey hoos murqaha haya waxaa la shaqeeya belvic florka o dhan korontada way isla shaqeysaa soo culeys fara badan ayaa ay u keenaysaa qofka obeesaha taas marka waxay keenaysaa in xididadii hadaya arkaysay way iska jilacan yihiin in hemorrhoid dhaqsi uu soo samaysmo ama in hadhow maxaan ku dhahaa fistula ay samaysanto macnaha banaanka malaxdii daadanayso derbiga samaysanto taas ayaa relationka habkaas uga dhexeeya waa gartay aada iyo aad baad kaaga mahad celinaya doctore waa maqlaysaan maasha suucado waa leeyahay waa hagaag layn kaloo ku xiga ahlan wasahlan asalaamu calaykum waraxmatullah hallow calaykum asalaam walaal soo dhawow kor yara hadaloo magaca nimca haddaad kor hadashaa kuu ducayn lahay walaal si waxaan kugu maqalno soo dhawow barnaamijka waa la socotay walaal dhakhtarka waxaan weydii lahaa soo daa su-aashaada waa maxay walaal walaal waxaa tahay gabar 3 sano iyo bar jirta marka muddo adiga 9 bilood ka hore waxaan ku arkay inuu saxarada soo raacayo dhiig waa gartay marka dhakhtarka markaan u sheegay saxarada qaadeen positive ay noqotay dhaheen marka dhakhtarka markuu arkan wuxuu yiri waxay qabtaa oo loo maleynayaa cudur la yiraahdo parliamentary bowel disease weli lama diagnose gareyn waxa ay qabto exactly marka taasaan weydii lahaa dhakhtarka way soo gelaya oo way keeni karaan waxaa irritable bowel syndrome inflammation si hadaa kii aan kuu sheegay colitis ulceratus iyo morbid Crohn waa laba cudur oo ku dhaca mandhicirka inflammation iska soconaya oo continuous soo noqonaya midna meesha dhan is qabsanaya ilaa iyo dhunta dhan sii gaari karaa midna qayb u cunaa oo tubadanan ka hadlaya uu cuni karaa marka kaas derbiga maadaama ay waxay jiraan dhiigga ay soo raaci karaa saxarada waa laga heli karaa soo laakiin waxaa la gooyaa
tubo markay geliyaan marka hadda waxay sameeyeen saxarada qaadan dhiigay ka heleen positive ay dhaheen marka waxay u badiyeen inay jirto cudurada mid kamid ah laakiin hadda waxaa second step waxa waaye booy inay jaraan tubo inay geliyaan ee jaraan ee abuuran ee fiiriyaan waa la arkaya marka doctor marka hadda la samaynayo tubada la gelinayo cunuga waa la fahmaya inuu yahay cuduradan oo inflammationka ah oo chronicada hooyo Soomaaliyeed may walaal tubo waxbaa la gelinaa maysan dhihin wuxuu yiri scan baa la saaraa ultrasound baa la saaraa okay iskaanka mararka qaar uu yar yahay aad u yar yahay hadda waxaa soo baxeen iskaan oo dimensionkooda aad u wanaagsan oo kuu sheegaya oo raacaya tubada dhexdiisa ku tusayaan inside ku tusayaan haddii kaas oo kale ay loo diraayo kaas wuu ku tusi karayaa laakiin iskaan caadi ah badana ma sheegi karo iskaanka normalka ah xagaag hooyo Soomaaliyeed waxaanu ilaahay kaaga baryaynaa inta taayir naciimo inuu ilaahay caafimaad ku siiyo mahadsantahay qayb qaadashada thank you حقاق نعيمة هاي الصومالية وبيبي كحنو سيا حلو سدوا إن شاء الله وحقاق لين كلو كحي السلام عليكم هلو هلو أقصدوا وين ولا ها والله لو حرب لسكينة يوحرك وأكو حرينا مركز تي في إسكا بختيسا دي لا يرادا وإسكا بختي ولا سودو مقعة هلو سودو ولا المقعة ومقعي وحل عايشة يا أقصدوا وين عايشة walaalo waxaan rabay inaan weydiiyo baabasiirka laba su-aaloodan weydiin lahaa soo daa mid waa baabasiir waxaan qabaa muddo 15 years ah waa garta cunugii ugu horreeyay ayuu igu dhacay saxarada igu adkaatay wuu igu dhacay kadib ilaa iyo waagii markasta cunug dhalo wuu igu kacaa markuu igu kaco maxaa la dhihi jiray hadda shalayta waxaan la kulmay dhakhtarkayga waxaa la ii balamiyey in layga khalo waa gartay wuxuu igu dhaha hadduu muskularkaaga weyd yahay iyo haddii kale cameraan gelinaynaa waa ogaanaynaa marka qaliinkaasa xoogaa ka yar warwalay maadaama hooyo dhaldhalaysan ahay marka maxaa talo uu dhakhtarka igu siin lahaa taas waa mid okay Aisha su-aashaas lagaaga jawaabo khad ku jirtan kalena dabeena usoo gudbaynaa marka Aisha muruqa oo wiiga la dhahay oo laga shakisan yahay keewa kan oo hoos aya okay maadaama hooyo dhalaysa aad tahay haddii muruqaas uu jilicsan yahay ama waxa uu yahay badanaa qaliinka laguma degdego si uusan qaliinka laftirkiisa neerfiyaalka waxyaabaha qaarkood u dhaawac u gaarsiinaya so hadhow haddana wax incontinence imaanaysa in meeshii ay wax deyso ay furad ayaa imaanayso hooyada dhalaysana way tahay taas ay iska ilaalinayaan so waxaa jiro qalab ay ku cabirayaan inta oo pressureka iyo muscle-kaas ay ku cabirayaan then markaas ay go-aan gaarayaan ay dhahaan okay waa lagu qali karayaa hama wuxuu igu yiri laba arrimood aan kuu samaynayaa mid hadduu muruqu weyd yahay wuxuu yiri dadkan surgeryga loo sameeyo maaragtay wejiga marka anesthesia lagu sameeyo cirbada yar aan kugu samaynayaa hadduu muruqu weyd ahayn uu muruqiisa caadiga uu yahayna waxaan samaynayaa buu yiri mindi yar oo waxaa jirto aan ku samayno 90% waa okay noqotaa 10% ayaa waxay noqotay inuu soo noqdo laga yaabaa marka soo noqoshadaas iyo difeetada ay ka imaan karto maalintii ka horreysana wuxuu igula taliyay qaliinka uu dib badan yahay saan waaye waxaa dhici karta xataa xaaka in la ceshan waayo waxaasuu yiri marka xoogaa walwal yaraa iga galay okay so laakiin wixii ma la sameynin ma cabiray pressurkii maya hadda ma cabirin hadda waxaa la soo siiyey appointmentigii waxaan sugayaa oo labada bishuu yiri marka hore alaaqa wixii lagu qabaysan wixii dhan way soo siiyey dhiigagii waa laga soo qaaday dhaygaas maalintaas aan tagay wuxuu yiri cameraan gelinaynaa meesha camerada markaan gelino markaasaan decisionka labada arrimood aan kuu samaynaya aan gaaraya sax okay waa hadal wanaagsan waaye marka qaliinka wax problem iyo wax dhibaato ah ma la soomaha haddii uu muruqa uusan jilicsaneyn oo incontinence aan laga baqaynin qaliinka inaa martida roon oo hal mar wax dhan la jaro si aysan usoo noqnoqonin maadaama hooyo aad tahay haddii hadhow asaaba arki doon haddii week uu jirana talada kale uu ku siiya ayaa la raacaya marka ka walwalin ayaga maadaama gacanta ugu jiro sida dadka kale ay sameeyaan waa u gooyay iyo waxaas hadhihin tag
waxaa faysgare qaabil go-aanka la gaara adigo kolley markuu kuu soo bandhigo waxa aa aragtid qaado go-aanka qaliinkiina u badan tahay in aad samaysid saa ay la eg tahay ha marka qaliinkaas ma laga yaabaa waxaan wax hadday saxaro yar xataa igu adkaato inuu wax soo noqonayo noqdo isla markiiba maya bawaasiir haddii la jaro marka la jaraayo mararka qaarkood way soo noqon kartaa laakiin 10% aa lagu dhahay xataa way kasii yartahay 10% haddii la gooyo xubka meesha ku yaalla macal xididkia la jaraya soo noqoshada aaday u yartahay ha ka walwalin caloosha dibrada ka imaanayso sababtoo aniga problem kala jira calooshayda ah faadka caloosha ku jira ah kaas dhibaatada soo iima keeni karo isaga soo ma keenin gaas ma keenaya ma garanayo calooshayda aniga jirkayga kala caadi waayo laakiin calooshayda weyn ilmahaan dhaldhalaya mina faad baa garawmale marna way dibiraysaa marna normal ay noqonaysaa laakiin dhakhtarka xataa wuxuu igu yiri waa inaad diyeed samaysaa maadaama caloosha faadkan ku jiro waxaa kuu keeni soo xoogan caloosha miisaanka soo saarmaya keeni karta bravo ha good sax waayo hadalkaaga marka maxaa iyadana aan samayn karaa kaas marka asaga inuu ku sheegay ahayd wad noocee diet aan sameynaa waxa keenaya oo in gaas fara badan sameysmaan sida digirta oo kale oo la isticmaalayo habeenkii sida spinachka la isticmaalayo inkastoo haddana waxay noqonaysaa dee calooshana jirci waa lagu leeyahay su-aashan waa way adag tahay sababtoo ah waa in balancihii waxyaabihii keenayay aaryadan inay yareyso waaye calooshana inay istaagina la rabaa bawaasiirtana la gooyo aaryada iyo hemorrhoidkana maxaa ka dhexeeya bawaasiir hadda ka hor anigoo wadan kalaan deganaa waxaa liiga geliyay dabada bahal aarya ah okay oo aarya iga saartay aniga dhan aaryo dhan wuu iga saartay calooshayda dhan way tagtay okay last time waxaa meesha u tagaani waxay ahayd baabasiirka markaas waan dhalay bilka 2 bilood ka bacdi 3 bilood ka bacdi ahayd okay meesha ay fiirin lahayn tubay caloosha liiga geliyay gadaal liiga geliyay tubadii hawa ilaa iyo meesha dhan hawa buuxsan dilated ahayd way weyneed sababtoo ah fiiri walaal waxaa jira dad qaar ka mid ah ayaa waxaa jira enzyme dhacaan oo aan shiidi karin cuntada qayr ka mid ah alool cuntadii qayb ka mid ah inay mindhicirka iyadoo shiidan kan weyn waay mindhicirka laga hadlayo iyadoo shiidan inay soo gaarto waay ma ay soo gaarin cuntadii qaar ka mid aan shiidneen jermis intaas oo milyan ayaa ku nool mindhicirka weyn kuwaas waxay weerar ku qaadaan cuntadii ay ka faa'iideysanayaan aariyadii waxay ka dhigayaan 10 jeer ay sii badinayaan marka distension dhacay dadka qaarkood enzymyada ay ku yar yihiin dadka qaarkood cuntada qaarkood dietka oo maxaan ku dhahaa aan shiidmaynin matada bataatiga saccharose waxyaabaha qaarkood ayaa keenaya so kan waa la sixi karaa ayadoo diet la raacayo so jermiskii aariyadii uu soo saaray ayaa colonoscopyadii tubadii la geliyay aariyadii laga dhuuqay distance aheyd 1 mitir iyo bar waaye mindhicirka weyn aariya ka buuxday caloosha dhan wuu taagaya soo taag marka laga bixiyna waxay dareentay nafisay dareysay marka kaas waaye calooshayda size awal 18 aan qaadanayay markii laga saaray hawadaasna 12 aan qaatay ha okay waaye marka adig focuska waxaa saartaa ama xooga saartaa dietka cuntada oo keenaya mashaakilkan inay mindhicirka weyn waaye meesha uu ka socdo waana in la ogaada in ay jiraan problem enzymatic inaad qabtid iyo enzymatic waa kuwax waxshiida dhicaan inay qabto in kalena in la jagareeyo waaye aaryadanaytina in laga ilaaliyo cuntada ay cunaysa ay iska ilaaliso waaye waa wax basiid ah midaan kaleeto gabar walaashay ah waxay qabtaa diyaareeyo too much ah haye oo aad u badan musqusha markay fariisatana musqusha dhan wada dhiig bay noqonaysaa okay marka iyadana maxay noqon kartaa waxay noqon kartaa tan waa ay u badan tahay su-aasha hadday gabaray weydiisay waxay waaye inflammationka ama maxaan ku dhahaa infectionka oo soo noqnoqonayo sida coronicada ah morbid coronka iyo colita ulceriosa in laga baaro waay inflammationka coronicada ah ha laga baaro oo tuba ha la geliyo ama dhacaanka dhiigna ha laga qaado waa la ogaanaya kuwaas inay yihiin iyo in kale ayagayna u badan yihiin caloosha bacteria hadda ka hor mar looga sheegay helicobacterka germs kankora kaas gooni waaye waa la baabiinaya waa la dilaya laakiin waxaan ka hadlayaa mindhicirka waa dheer yahay
kan yar mindhicirka yar iyo mindhicirka weynaa la dhahaa kan yar wuxuu gaarayaa ilaa iyo 7 mitir uu gaaraa kan weynkana 1 mitir iyo bar uu gaarayaa marka kan haddii inflammation uu ku dhaco infection uu ku dhacayo soo noqnoqonayo derbiga xoqmayo dhiigga soo raacayo diyaarada imaanayso waxaas oo dhan way iswada haystaan marka labadaas cudur oo chronic ah laga fiiriyo gabadha aad iyo aad baa umahadsantahay Caaisha thank you umahadsantahay Caaisha waqti badan waa ku siina umarayna وحقاك لابد قفان فرصتين هجي لا هذا هلو هلو أقصدوا ولا عليكم السلام سودو مقعة وفارح أنجل محمد فارح سودو برادر وندوا أخي برنامجنا لا سعتان جعلها السؤال على السوداء إن شاء الله عن برنامج والله لكن برنامج كسؤال كبحثنا وصعدي لي قابلة والله walaalkay waa mahadsantahay waa jeclaan lahaa inaan ku qaabilno laakiin duruufta loo musaabaxayn cadaalad darreena noqonaysaa marka mawduucan ka hadlayno ayuu barnaamijkaana ku baysgaraysan yahay wixii intaa ka dheer insha allahu tacaala waxaan kuusoo daynaynaa taleefanada dhakhaatiirta lagala hadlo dabeedna adigu si toos oo la hadal insha allahu tacaala faarax sooda brother midda mawduuca waxaa waaye akhi marka ma aragti oo adiga raashin badana cuna marka raashin badan cuna marka musqusha aad galoo kale saxarada wax yar aniga waxaa rabaa wax badan dhigo kale adig biirto kala basaday aad kaloo basaday isbinaasiga basaday qudaarta basaday kale marka caloosh inay socoto rabaa marka caloosh inay soconayso musqusha aad kale wax yar dhiga marka waa caafi waa sirmiya ama wax kale waay shikr Allah wa'ala baya bawasiir kaliya lama dhigi karo runtaa waa dad waxaa jiro movementaha mindhicirka sakanu ku socda oo aad u fara badan marka kaas ayaa waxa laga yaabaa inuu xoogaa yar yahay movementii oo faraaqada uu ku sameeynayo markaas oo kale kaniiniyaal ama daawo ay xoogaa u caawin karaa oo maxaan ku dhahaa 2 weeks 3 weeks wax yar ah period aan long ahayn period dheerana la rabo in mindhicirka la caawiyo inuu dhaqsi waxaan saaro kaasaan kula talin la iyo biyo badan inuu cabo exercise sameeyo intaas haddii sameeyo markaasi caloosha way soconaysaa waxaa kaloo jira faarax yarasub insha allah waa kugu soo celinayna waxaa jira dadka calooshooda saas oo kale ay u shaqeyn weydo khasabad gadaal laga geliyo oo wixii dhan soo saaraysa arrintaa maxaa ka ogta enema ayaad ka hadlaysaa enemadu way kala duwan tahay oo biyo waaye ay ka samaysan tahay cellulose oo lagu nadiifinayo mindhicirka qaybta hoose ah oo lagu shubayo waaye ayada laftirkiisa way kala duwan tahay xataa markaa aad samaynaysid colonoscopiyada waa ku samayn kartaa run waaye meesha saxaro fadhiisanayso saxarada derbiga saa u taqaanid mindhicirka sida waxaa saaran yihiin dufankaasoo sabiibixay ka dhigayaan oo macnaha u fududayna saxarada inay dhaqsi meesha ka baxdo ma fahamtay alora haddii saxarada in somehow biyihii ay yaryihiin mindhicirka weyn uu aad biyaha u dhuuqayo qaleel uu ka dhigayo alora geedaas qasabadaas aa sheegaysa enema allaha oo aa lagu shubaa fliid markii lagu shubo hadhow meesha dhan nadiifay ka dhigay way soo daadinaysa dad qaar ka mid ayaa qaba bas faarax maxaa intaa ku biirinaysaa saaxib inta waxaa ku biirinaa su-aasha way ka baxsantaha laakiin waxay tilmaantahay kheyra ku rajeynaya jiri marka su-aashaasina muhiim ay ii tahay inaan weydiin walaalkay waxaan kuusoo daynaynaa dhakhaatiirta teleefonkooda insha allahu tacala weydii nidaamka barnaamijkan aan u wadno waxay tahay adiga keliya wax quseyna maahan waxaan jeclaan inaad khalad ii fahmin insha allah mawduucan ka hadlayno oo keliya un baanu fooda darnaa wixii mawduuca ka baxsan ama mar kale aan fooda darnaa ama idinka ayaa toos dhakhaatiirta oo la hadlo waa kaaga mahad celinaya brada faarax caafimaad fara badan oo kuu rajeynaya doctor waxaan jeclahay inta kusoo gabagabayno aanan qof kale fursad siinin newska fooda nagu soo haya dardaarankaaga waa maxay dardaarankayga cabdixaafid wuxuu ku beysgaraysan yahay hadalkaaga oo ha gaar ahaan ragga ma ka soo dacwoodaan ama lama saaxiibaan dhakhaatiirtooda waxaas ragga way ka baqaan laakiin waxaan dhihi lahaa raggana bal caafimaadka lagu dadaalo mashaakilka weyn intuusan imaanin ayagana laftirkooda inay hadlaan oo ay ka qayb qaataan dhakhtarnimada macnaha ay u tagaan dhakhaatiirta ay ka hortagaan cudurada intay ku dhicin haweenkana inay sii wadaan dadaalkooda ay wadaan dhakhaatiirta iyo connectionka ka dhexeeya in la sii badiyo so si aana mashaakilka aysan u dheeraanin doctor aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa qayb qaadashadaada barnaamijka late night show adiga iyo dhakhaatiirta kale mar walba waxbaan idinka faa'iidnaa kulligiin waa mahadsantahay doctor abshir cabdalla mansuur aad baan kugu mahad celinaynaa adiga hooyadii aabihi wax kusoo barayba waa hagaag farsamadu waa cabdirashiid rashka oo si hagar la-aana nooga caawiyey barnaamijkan caawa
iyo weliba cali naaji. waxaa kaloo stuudiyaha nala joogan u mahad celinaynaa wariye maxamed saciid asaxaaf oo mahad celinaa. barnaamijkan waxaa idiin soo saaray anigoo cabdixafiid maxamuud jaamac, isla mar ahaantaan idinla socodsiinayay. dadkiina daawanay dhowran uga mahad celinayay intii u suurtageli kari weydayba. intaanu mid kale kanoo kalaa kulmi doono, taqwada ilaah iyo midnimo. asalaamu calaykum waraxmatullah. cudurkan la leeyahay faaska waxyaalaha ugu mid waxay tahay qofkii intuu cunayey iyo intii ka baxaysay baa kala badanaya. waxaa kaloo halkaas ka arkaysaa gabdhaha soomaalidu inay aad iyo aad ma arkaysaa duntooda u fiican tahay